ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ee Somaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay gudaha Somaliland ka wadeen kulamo ku aadan sidii la isaga kaashan lahaa joojinta guud ahaan gudniinka waxayna maanta kulan ku qabteen xarunta hanuuninta ee magaalada Boorama halkaasoo ay kula hadleen bulshada ku dhaqan Boorama waxayna bulshada Boorama ku dhaqan u soo bandhigeen dhibaatada uu gudniinku leeyahay Ogaaso Cabdi iyo Xamda oo ah saraakiil ka kala socday ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ee Somaliland ayaa ugu horeen kulankan kula hadleen bulshada ku dhaqan Boorama waxayna u soo bandhigeen dhibaatada uu gudniinku leeyahay marka barnaamijka maanta wadna waxa weeyaan awareness ama wacyigelin laga sameeyo Boorama dhexdeeda anagoo ka shaqeynaa xaafado ka mid ah magaalada lana shaqeynaa guddiyo kala duwan lana shaqeynaa shaqaalaha caafimaadka kala duwan ejanka waxa lagu baraarsi karaa ama laga isticmaalaa dhammaan Afrika oo dhan inkastoo inka la yiraahdo dalalkii ugu badnaa sida Suudaan iyo Masar oo kale waa laga joojiyay oo percentage-kooda aad u yar haddana inka markaan ka hadlayno Soomaaliland oo kale wuxuu marayay 70 markii la bilaabay ololihiisa wuxuu marayay 100% imika wuxuu marayaa 98 ama 98 sanadkiina 2% bas intaana wacyigelintayo wax waliba way socdaan waxa lagu sameeyaa meelo kala duwan miyiga lagu sameeyaa magaalo lagu sameeyaa qalabka la isticmaalayna way naqaanaa qalab nadiif ah ma la beenayna la isticmaalo waa sunna bali sunnihii hadana iyagoo leh waa sunna ayay xubintii hore oo dhan jarayaan ilmihii caabuq baa ku dhacay waxa ku xigta waxa jirtay gabadh maalin maalmaha kamid ah loo keenay gabadh caafimaadka gabadh baa tiri waan gudayaa waxay soo qaadatay suuxisadii waxay ku shubtay tiina hooyadeedna tii suuxisada tuu eeg oo tiina ku jiro ay quruuradii labada quruuradood baa iska rabday gabadhii yar ay suuxisadii laguma shubin waxa lagu shubay tiinarkii markay ooydaba waa la qabtaa waa la xajiyaa marka la xajiyaa tiinarkii loo sii kordhijiyaa iyagoo moodaya tii suuxisada ilmihii yaraa sidii tiinarkii loogu waday ee loo xajinayay ee loo qabanayay ayuu dubkii oo dhan ka dhacay oo gubtay sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka cuqaasha haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaaladan Boorama isla markaana kulankan ka soo qayb galay ayaa waxay ku dheeraadeen dhibaatada uu gudniinku leeyahay waxayna isla garteen sidii la isaga kaashan lahaa joojinta guud ahaan gudniinka Cabdi Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama